maanta waxaynu ka hadlaynaa waddanka caalamka ugu yar haddana ka mid ah wadamada caalamka ugu qanisan. waa waddan shidaalkiisu ka jaban yahay biyaha, waana waddanka Kuwait. Kuwait waxay ka kooban tahay 9 jasiiradood kuwaasoo qani ku ah shidaalka. magaca si rasmi loogu yaqaano waxaa la yiraahdaa State of Kuwait. Kuwait waa waddan ku caan ah dhaqanka iyo horumarka dhaqaalaha ee wadamada Carabta. caasimadda dalka Kuwait waxaa loo yaqaanaa Kuwait. Kuwait waxaa gumaysan jiray Ingiriiska waxayna xornimada qaadatay 19 Juun 1961. waddanka Kuwait waxa uu gaadhay horumar aad u ballaaran tan iyo markii uu qaatay xornimada. maalmaha xorriyadda waxaa si rasmi ah loogu dabaaldegaa 19 Juun oo astaysan maalin qaran. laakiin bilaha Juun oo ah bilaha aad ugu kulul ee samarka, haddana dawladdu waxay u sarartay dabaaldega 25 February. lacagta waddanka Kuwait waxaa la yiraahdaa diinaar, waana lacag aad u qaali ah marka loo eego caalamka. halka diinaar ee waddanka Kuwait waxa uu dhigmaa $3.2 ee lacagta waddanka Mareykanka. qofka Kuwaitiga dakhli ahaan waxaa soo gala $72,000 celcelis ahaan. sida uu sheegay Bangiga Adduunku, waa waddanka afraad ee ugu dakhliga badan caalamka. dumarka waddanka Kuwait waxaa loo ogol yahay inay codeeyaan, sidoo kale isu sharaxaan siyaasadda waddankaas. dhaqaalaha waddanka Kuwait wuxuu ku tiirsan yahay shidaalka, waana waddanka 6aad ee caalamka soo saara shidaalka. Kuwait waxay ku dhaqantaa si filow sharci ahaan, halka wadamada Carabtu ay ku dhaqmaan shareecada Islaamka. Kuwait waxay shidaalka dhoofisaa 60%, waxayna u dhoofisaa wadamada Asia. tirada dadka ku nool waddanka Kuwait waxaa lagu qiyaasaa 4.6 milyan oo qof. dadka ajnabiga ah ee u soo shaqo tagay waddanka Kuwait waxaa lagu qiyaasaa 1 milyan oo qof. Kuwait waxay ku jirtaa wadamada aan lahayn railway ama wadooyinka dhaadheer ee toosan. sidoo kale waddanka Kuwait ma laha webiyaal biyahoodu si joogto ah u socdaan.